السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جناك وجنال كيني أبو بافرين وأبوك حسن بافرلن من الوقت كسبتين. سلام الله عليكم. هدي جنالك عصوبتها فضلا سبسكرايب صار لايك صار شير له كومنت كسبتي سيان على ذات كنوغان إن شاء الله تعالى مرة هذه مسلحة من الوقت كسبتين. سلام الله عليكم. الموضوع عربينا كهذا الموضوع ما أنصر نقناي يعني طبعا أنا ما تسوق بكبير waxaad qaadatay sirwaal neeclee oo kugu dhagan oo adiga dhibaato aad ku gashatay anaga xilliga horeeto oo aan joognay oo aan dhalinyarada ahayn hooyaday markii sirwaalka uu naga jaxmay ay nasiiso shilin ay nasiisay sirwaalka soo tasha sirwaalka karna aad ayuu noo dhibay maanta saraawiisha si uu qaalisan sirwaalka karna ayaa la qaataa waa lagu faana waxa lagu iibiyaa arwooyinka ugu waaweyn waa xadaarad la gaaray wiilka gurgiisa ka baxay subaxna markuu baxay hooyadiis waxa uu warsadaa hooy wuxuu leeyahay bacdi aad ku soo adeegatay taa ulajeedkeeda ma ahan inuu bacda adeeg ku doonanayo ama wax ku soo qaadanayo balse wuxuu rabaa inuu sirwaalka uu gashanayo uu ku gashto bac cajiib habeenka markuu yimaado waxa uu hooyadiis weydiinaya ama gabar walaashiis bacdi aad ku soo adeegatay soo taa saa ka qaadata bacda lagu soo adeegay bacarkan ka keenaa danta waxay ku qasbaysaa inuu sirwaalkiisii ku jeefto uu ku hurdo taasina waa xadaarad la gaaray aad iyo aad ayaan uga xumaay inuu labiskii hore halaabay dhalinyarna ay qaadanayso sirwaal aad iyo aad u dhib badan oo cariiri ku ah sirwaalkaasi oo sababi karo in uu qofka ku dhaco mindhicir xanuun uu ku dhaco madaxog xanuun uu ku dhaco murqa xanuun sababtoo ah maanta oo dhan waad cadiban tahay maanta oo dhan waad dhibaataysan tahay waad cabursan tahay hadda ka hor ayaa macnaha dhalinyarada waqti horeeto waa xoogaa waa iska shukaansi waa la aadi jiray qof aan shukaansanaya habeenka dhow ku jirta war maxaa kugu dhacay marka dambeeto waa ii sheegi weysa habeenkii heeranka warade haddii cuncunku hay ama xasaasiya ku hay xasaasiya xilligaas ma jira laakiin waxaa jira jeeda cudur la yidhaha isnadaamis oo luuqa lagu dhuma jira markaa isxoqayso fargeetaa la isku xoqi jira xataa duudka markaa gaari weyso dadka aniga ilofilka ama kuwa iga waaweyn way fahmi karaan cudurkaas waxaa la dhihi jiray isnadaamis oo maxaa qof kasta waa isnadaamiya faraha waa iska nadaamine korkaa iska nadaamine adiga isnadaam waay habeenka gabadha way ii sheegi weysay waxaa ku dhacay xilli dambeeto oo sanad ay kasoo wareegtay ayaan hadalkii inta soo xasuusta arrintii aan kusoo qaaday war maxaa kugu dhacay waxay tiri habeenkaas waxaa igu jirta kulaa kastuumo oo meesabanye waa kan kastuumooyinka lagu qubaysto oo bajinooyinka lagu galo garanka isku xiran habeenka marka waa cabursanaya dhacday anna ma aan garanayn dhacday kuwa dabaash inay yihiin waxaan asturaad aan usoo qaatay dhacday maadaama asturaad aan usoo qaatay xilli badan aan adiga kula joogo aan kula sheekaysanayay cabursanaantii ay iga badatay marka dharka lagu dabaasho waa dhar istriij ah dharka hadda lagu xarakoodana waa dhar istriij ah marka maxaa u dhexeeya aan dhihi karnaa oo different may xilliga aabadda ku jirtid waad cabursan tahay oxygen aad qaadataa neef oxygen okay laakiin hadda neef oxygen oxygenka caadiga oo ilaahay ku siiyay ayaa haysataa balse jirkaaga 24 saac xilliga dharkaas wadatay waa uu cabursan yahay ama saaka ha ahaato ama sirwaal ha ahaato ama furaanad ha ahaato dharka streetka marka waxaan idin dhihi lahaa walaalayaalow haddii aad iska dhaafi kartaan iska dhaaf haddii aad iska dhaafi karin almiina yareeya hala yareeyo الله سبحانه وتعالى عريري ما أبورين عريري أديك أتجمع هذه سجلسه أو نفس ده أديك أتجلسه أو بربلين كاجي ماذا وعريري أديك عايز جلسه مت إلى وقولي ما كحركة وحنمقل جرا حركة وحنون تاي حنون واي ده أركي جرا ما هذا إسكتين تو إسكتين أشون يسكين مجلة كيري اسمه أبو صبر حركة حنون واي ما كان أبو سنان تنو حركة صوما ما كان ولا لوك عليه ولا شيء قالي جاهدي dharka streetka hanada dhar softy iyo kan dhar aad u kakan oo aad ku caburiyo jirka aad u jeedid wuxuu leeyahay dulduleelahaas jirka ayaa ka neefsado dhidida ka soo baxo waa qashin saar okay marka uu dhidid korkii wixii uu waayo muddo uu cabursanaado cudur iman karo marka walaalo gacliyo wala shay gacliso wanada bariya dharka streetka ama saraawiisha la isku dhajiyo oo bacda lagu garto haddana wallahi qurux maan jidka markaan socdo marka wiil luga dhuswa luga dhuuboto oo goor dhimaado uu ku dhigasay wallahi aboon uu ndisho aad iyo aad ayuu fulxin yahay laakiin balse dad badan ayaa u maleeyay inuu qurux yahay qurux ma waxaas qurux waxa dharka localka dharkan shaarka oo kale tad iguma dhigano sirwaalka oo kale iguma dhigano
waxaan harqaan u geey oo lugaha uu soo dhuubo isugu dhajin ma aqaan aniga horta kub saasan ilaahay ma siinin hadduu kub ilaahay ku siiyo oo fiican hataa problemna ku jirtaa dharku wuxuu ku fiican yahay inuu waafi yahay marka idinkoo iga raali ah oo aan qalad ii fahmin sarawiishii streetka iyo goonooyinka streetka ee jirkaaga weliba gabdhaha way igu soo dareen jirkaaga oo sawiraya streetka structure-kaaga oo dhan oo soo bixinaya waxba kuma qarsana marka walaashay qaado dhar xoogaa waafi kugu ah si uusan jirkaaga sawirkiisa oo muuqan xaggiina kuma fiicna xag anshaxna kuma fiicno wixii oo dhanba hadday bannaanka yimaada xaajiga maxaa u keenay xaajiga xulihiisa bannaankaa soo bixin u kaay fiiri hadda matalan markaan soo qaado luul oo jidka lagu gadgadayo ma aragti may why I work with because it's a very expensive aad ayuu qaali u yahay that's why loo qariyay saas darteed wuu qarsan yahay luulka okay gabadha jirkeeda waxay xijaab u qaada loo yiri ama dhar waaweyn oo laga dareemin u qaada leeyiri waa luul waa diamond laakiin luulki diamondka haddii oo banaanka soo baxo very cheap bulukaati ama dariiq walba lagu gadaya bulukaatiga qiimo saas ma laha dahabka xoogaa wuu ka qiimo badan yahay bulukaatiga saas ay tahay jidka u yaalaa aadana loo xafidaa oo dadka waa laga ilaaliya tuugada waa laga ilaaliya sababta loo xafidaa maxay tahay waa very expensive that's why aan ku leeyahay jirkaaga gabadha muslimadahay waa very expensive very cheap ha ka dhigan raqiis ha ka dhigan oo banaanka soo saar mar haddii street qaadatana very cheap raqiis aad ka dhigtay walaalay qaali yaa tahay allah subxaanahu watacaala qaali kaa dhigay aad ayaa naga agtayna muhiim uga tahay dadkaaga muhiim uga tahay gabadhaha muslimada jirkaaga astro wassalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu